فاطمة محي الدين معو. So I want to take the opportunity to thank each and every aad baan ugu tahniyadeynaynaa annagoo xogga dalka Soomaaliyeed waxyaalo badan inkastoo annagu ay maxay ahayd ciidan nahay oo diintayadu ay qabto waxyaalaha macnaha boqolkiiba 90 diinta iyo sharciga iyo nidaamka ay meel badan iska qoseeyaan sida badan ay iska qoseeyaan waajibaad ama wax looga baahan yahay ciidanka. You have been trained on human rights issues and you are expected to go back and pass the message to your colleagues. As the Chief Training Officer, that is part of my work here. We are working closely with Somali National Army to increase their understanding to international human rights and international humanitarian law. And we are also delivering session on the understanding of basic principle of Sharia law and human rights as Somali culture cross-reference to international humanitarian law. Okay, thank you.